neebal waxa ku dhuftay daadad degdeg ah oo aad u baaxad weyn 26 August abaaro 9:15 subaxnimo daadad aad u xoog badan ayaa ku dhuftay waqooyiga Nepal meel u dhow xadka Tibet kuwaas oo burburiyay tuulooyin wadooyin biriijyo iyo mashaariic koronto laakiin ma ahayn daadad roobad oo caadi ah qadar aad u weyn oo baraf iyo dhagaxyo ah ayaa ka soo dumay buuraha Tibet taasina waxa ay sababtay in biyo iyo dhoobo aad u xoog badan ay ku fatahaan webiga Koshi daadku waxa uu markaas si xawli ah ugu soo fatahay dhanka hoose ee webiga isagoo dhex maray Nepal kuna dhuftay deegaamo ay ka mid yihiin Rasuwa iyo Nuwakot ma jirin nidaamyo digniin ah oo horumarsan oo daadka waqtigiisa ku ogaan kara oo dadka uga diga ugu yaraan 160 qof ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena weli la laayahay in ka badan 400 oo dalxiisayaal iyo dad kale ayaa la soo sheegay inay maqan yihiin waxaana kamid ah boqolaal qof oo ajnabi ah daadku waxa uu sidoo kale burburiyay ku dhawaad 19 biriij iyo ku dhawaad 40 kiiloomitir oo wadooyin ah kooxaha gurmadka ayaa hadda adeegsanaya diyaaradaha qumaatiga oo kaca ee helicopteriska iyo doonyo si ay u raadiyaan dadka badbaaday balse dhulka buuraleyda ah ayaa hawlgalka ka dhigaya mid aad u adag khatartu wali ma dhamaan mas'uuliyiintu waxay dadka uga digayaan inay ka fogaadaan webiyada waaweyn maadaama daadad kale iyo dhulgo ay dhici karaan tani waxay ka mid tahay daadadkii degdeg ah ee ugu dhimashada badnaa ee Nepal soo mara sanadadii ugu dambeeyay